السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آوي معلمينتي حسابتي اسكولada dhigaya aaway xagee bay jiraan aaway ardaydii baranayay xisaabaadka aaway dadkii jeclaa wax furfurista maskaxda iyo sida loo habeeyo oo wax la isugu daro aaway dadkii hal xiraalayaasha jeclaa aaway maanta xujaan wataa xisaabeed ka faa'iideyso bal isku day inaad ka jawaabi karto qalinkaygii warqadeydii waan haystaa waxaan isku dayi doonaa sida ugu fudud ee ugu macquulsan inaan kuugu sharaxo insha Allah halkanay ka bilaabmaysaa marka qalinkaagii warqadaadii soo qaado haddaadan waxaan qoran ma fahmi doontid bilaash uma dhididayo oo aniga horta ii darsada waxaan qarrac iyo xisaab iyo waxaan u wadaaniyo warsaciido see rabtaa adiga ورالي هذا نو وحن وهبكيga iga raali noqda hadaadan ka helin afwan igu qaado way halkaani kaaga bilaabmaysaa marka qoro nin ayaa wuxuu dhistay hotel weyn ayuu dhistay hotelkaas wuxuu u sameeyay qolol gaaraya 100 qol hotelka waxa loo dhisay qaabka naqshadiisii waxa iyo kama hadlayo laakiin qolalka hotelka uu ka kooban yahay waa 100 qol qoro qolalka waa 100 qol hotelka ninkaasi waa 100 qol way waxa ka shaqeeya shaqaalaha hotelka waa ee qolalkaasi 100 qof ayaa ka shaqeysa hotelku wuxuu ka kooban yahay ku iri 100 qol oo hurdo ah oo la seexdo iyo 100 shaqaale ah soo ma cadda clear soo maaha ha haddaba seebe u shaqeynayaan waa shaqaalaha sidan u shaqeynayaan marka halkan marka faham please saaxib faham maskaxdan furfuraynaa wax fiican baan keenaynaa insha Allah 100 shaqaalaha ah shaqaalaha koowaad shaqadiisu maxay tahay shaqaalaha koowaad shaqadiisu waa inuu subaxi shaqada soo galo uu qol walba furo from 1 up to 100 qolka koowaad ilaa qolka boqolaad shaqaalaha koowaad shaqadiisu wax kale ma aha uu soo galayaa hotelka qol walbuu furayaa dag isaga intaas weeyaan shaqadiisa ma iga haysaa exactly shaqaalaha labaad shaqadiisa maxay tahay shaqaalaha labaad isagu shaqadiisu waxay tahay maadaama laba uu yahay nambarka shaqaalaha labaad uu kaga jiro wuxuu galayaa oo kaliya qolka lambarkiisu uu ka bilaabayo 2 wuxuu ka bilaabayaa lambar 2 wuxuu galayaa 2 macnaa dhaban buu u shaqeynayaa 2 qolka labaad qolka afraad qolka lixaad qolka sideedaad qolka tobanaad qolka 12aad saasuu ku shaqeynayaa qofka labaad ee shaqaalaha labaad ah markuu hotelka yimaado isagu shaqadiisu waa qolalka nambarkiisa maadaama uu 2 yahay 2 ka bilaabmaya tiro dhaban buu u shaqeynaya 2 4 6 8 saas weeyaan haddii qol uu furan yahay uu galana uu soo xirayaa haddii qolka uu xiran yahayna qolkiisii uu furayaa maxaan ku iri meesha aan wax ku gaadayo waa tan saaxib yaanan ku gaadin macallin ardayda dugsiyada sare dugsiyada dhexe dugsiyada hoose kulli macallimiinta ifahma qofkan labaad shaqadiisu waa qolalka 2 4 6 8 saas u shaqeynaya shaqadiisuna waxay tahay haddii qolka uu xiran yahayna wuu furayaa haddii uu furan yahayna wuu xirayaa qofka saddexaad ama shaqaalaha saddexaad ee hotelka shaqadiisu waxay tahay isagana wuxuu ka bilaabmayaa maadaama nambarka saddexaad uu yahay qolka saddexaad ayuu ka bilaabmayaa qolka saddexaad 3 buu tirsanaya hadana 3 qolka lixaad buu galiyaa 3 uge 6 qolka lixaad buu galiyaa qolka lixaad 3 uge qolka sagaalaad qolka sagaalaad 3 uge qolka
labiyo tobanaad haddii qol kasta uu xiran yahayna wuu furayaa hadduu xiran yahayna wuu furayaa hadduu xiran yahay wuu furayaa hadduu furayana wuu xirayaa shaqaalaha afraad exactly saas u shaqaynaya qolka afraad ayuu ka bilaabmayaa shaqadiisa qolka afraad afar u gee qolka sideedaad afar kale u sii gee labiyo toban saas u shaqaynaya exactly hadduu qolka furan yahayna wuu soo xirayaa hadduu xiran yahayna qolkiisa wuu furayaa qofka shanaad muxuu noqonayaa isagana waa kii tusaalihii ugu dambeeyey saa u fahamteed qof walba nambarka uu yahay ayuu qolkiisa ka bilaabmaya qofka shanaad shan maxaa ugu xiga tobanaad shan ku dar toban qolka tobanaad shan ku sii dar 15aad 20aad waa ka shaqadooda dhow marka waxay ka wada sameyn yihiin haddii qolka uu furan yahay way soo xirayaan haddii qolka uu xiran yahayna way furayaan yaa ilaahi intaa ma iga haysaa intaa si fiican ma u fahamtay ilaa laga soo gaara marka hadda waa kantay ilaa laga sidaasaa loo wadayaa ilaa shaqaalaha boqolaad uu isaguna taabanayo qolka boqolaad shaqaalaha boqolaad wuxuu noqonayaa ka u dambeeya ee ah qolka boqolaad walaa xiritaan iyo furitaan isagana kuwaasuu kala mid yahay hadduu xiran yahayna wuu furaya hadduu furan yahayna wuu soo xiraya saasay u shaqaynayaan shaqaalaha boqolka shaqaalaha iyo boqolka qol waa sidaas intaa ma la fahmay haa waaya haddaba su-aasha maxay tahay intaas waa xujadii ay ku dhisnayd sheekada ay ku dhisnayd xujadii su-aasha waa tan qoro marka su-aashan qoro ugu dambayn su-aashu waxay tahay imise qol ayaa furan waa ku qabtay waa ku hayaa imise qol hee ayaa furan soo qaado markaa warqadaadii qalinkaagii waxaagii soo qaado caddayd hee qoraal gal marka sheekadan joogsidhe dib u noqo maxaan kuu soo sheegay boqolkii qol ka soo bilow boqolkii shaqaalaha ku soo xiji shaqaalo walba shaqaduu qabanayey tirooyinka qaar waa ogahay qaar waa kinsi qaar waa dhaban keliya qaar waa isku dhex jir kinsi dhaban ba isku dhex jiraan waxaasoo dhan abta ka soo shaqaysa macallin ardayda xisaabta jecel fiisigiiska kulli xisaabaadka dadkii garaadka jeclaa aawo dadkii wax ka waxay war bilaash oo looma dhididaynayo wax macaan baa lagu keenaya waxaa maskaxda loo furfuraa lagu keenaya ii soo sheeg fadlan imise qol ayaa furan commentigana ku soo jawaab bilaash yah aad baa u mahadsantihiin waa saaxiibkiin Siciid Xagaa oo isku dayay mar walba wax dadku maskaxdooda furfura waxay wax ka faa'iidaan waxay wax kale ka sii samayn karaan iyaga ka sii dhex kaluumaysan karaan meesha hoteelka aan ka dhig wax kale ka dhigi kartid meesha shaqaalaha bedeli kartid yareyn kartid wax yar ka dhigi kartid inta in ka badan samayn kartid laakiin si aan wax badan u helno maxay xagaa muxuu kaaga fadhiyaa muuqaalkan waa la garaynaysaa insha allah waadna la wadaagaysaa asxaabtaada beejka ma ku cusub tahay la soco beejkan soo follow garee subscribe soo dheh waayo wax badan baa halkan kugu dhaafaya waxyaalo badan qosolaa ku jira faniyaa ku jira anigana waxaan samayn doonaa fursad markaan idin siiyo oo aad soo jawaabtaan ayaan commentii ku soo jawaabi doonaa waa mahadsantihiin saaxiibkiin Siciid Xagaa iyo mar kale isaga keligiisa muuqaalka iska duubaya asxaabta ma joogaan shaqaa lagu kala maqan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu